الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعل لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيء أما بعد kelmadeennu in sha allahu tacaala maanta waxay ku saabsan tahay axkaamu siyaam axkaamta soonka ama bisha ramadaan axkaamteeda iyo wixii ku tacalluqa nadwada qeybteedii hore maadaama fadaaisha laga hadlay waxaynu ku soo gudbin doonaa in sha allahu tacaala ama aynu rabnaa inaynu qaadaa dhigno haddii allah awoodali u ogolaado qodobka koowaad siyaam maxaa la yidhaahdaa marka laga fiiriyo dhanka luqada iyo dhanka sharciga ama erey bixinta culimmadu ay ku heshiiyeen iyo qeexidda waxaa kaloo aynu tilmaami doonaa waajibnimada bisha ramadaan soonku inuu waajib yahay iyo daliilkeeda waxaynu kaloo tilmaami doonaa maxaa lagu ogaanayaa bishii ramadaan in la galay oo wakhtigeedii la gaadhay xukunka soonku muxuu ku sugnaanaya haddaynu si kale u dhigno waxaynu kaloo in sha allahu tacaala tilmaami doonaa soonku yuu ku waajibayaa waxaynu kaloo tilmaami doonaa in sha allahu tacaala maxaa siyaamka ama soonka buriya waxaynu kaloo tilmaami doonaa waxyaabo dadku ay moodaan inay soonka buriyaan oo soonkii aan burinayn siyaamka ama soonka marka laga hadlayo dhanka luqada waxaa la yidhahdaa alimsaak ka joogsi shay laga joogsadaa la yidhahda waminhu qowluhu tacaala inii nadartu liraxmaani sawma falan ukalima alyowma insiya maryamo markii alleh subxaanah wa tacaala uu ka warramayey waxay tidhi allaha raxmaankee naxariista badan waxaan u nadray inaan soomo falan ukalima alyowma insiya maanta ruux bini aadano aan la hadlayaa ma jiro siyaamka ay sheegayso waxa weeye waa tarku lkalaam sharci ahaanna waxaa la yidhaha alimsaaku can jamiici almafdiraat min duluuci alfajri ahaani ilaa quruubi shamsi maca niya waa afhaysi laga afhaysto ama ka joogsi laga joogsado dhammaan waxyaabihii soonka burinayay laga soo bilaabo marka fajarku uu dilaaco laga gaadho ilaa marka qoraxdu ay dhacayso oo ah soonkeenna meesha uu ka bilaabmo iyo meesha uu ku dhammaado sawmu ramadaan waajibnimadiisa marka laga hadlayo wujuubu siyaami ramadaan haabitun bilkitaabi wasunnati walijmac wuxuu ku sugan yahay kitaabka iyo sunnada iyo ijmaaca waata ilaahay qur-aanka uu ku leeyay yaa ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum asiyaamu kama kutiba cala aladiina min qablikum lacalakum tattaquun kuwii alle iyo nebigiisa rumeeyeyo allah baa u dhawaaqayo wuxuu ugu dhawaaqayaa erey bini aadama loogu dhawaaqo kii ugu qiimaha badnaa oo iimaanka qalbigooda ku jiraa lagu sharfaya alle wuxuu leeyahy yaa ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum asiyaam kuwii alle iyo nebigiisa rumeeyeyow ilaahay wuxuu idinku waajibiyey bisha ramadaan inaad soontaan buu idinku waajibiyey kamaa kutiba cala aladiina min qablikum lacalakum tattaquun sidii ilaahay subxaanah wa tacaala ugu waajibiyey ummadihii idinku horreeyey waxaad mudan tihiin inaad cabsataan aayadda waxaa lagu jamciyey amarkii waxaa lagu jamciyey takhfiifu اlxukmi waxaa lagu jamciyey samarada ka dhalanaysa amarkan haddii la fuliyo oo ah alla ka cabsi subxaanah wa tacaala waata ilaahay leeyahy subxaanah wa tacaala shahru ramadaana aladii unsila fiihi اlqur'an hudan linnaasi wabayinaati min alhuda wاlfurqaan faman shahida minkum shahra falyasumhu baa alla yidhi subxaanah wa tacaala bisha ramadaan waa bishii ilaahay subxaanah wa tacaala qur-aanka uu soo dejiyey kalaamkiisa qiimiga badan baa ilaahay subxaanah wa tacaala wuxuu u doortay inuu soo dejiyo bishii bilaha ugu qiimaha badnayd ee shahru ramadaan
qur-aankaasoo hanuun oo ilaahay subxaanahu wa tacaala dadka uu ugu talagalay inuu ku hanuuniyo oo xaqa uu ku tuso isla markaana baadilka yani markaa uu uga digo ayaa alle subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay faman shahida minkum shahra falyasumhu ruuxii bishii xaadira arko oo goobjoog noqdo oo ay soo gaadho soo gelitaankii iyo dhalashadii bisha falyasumhu baa alla yidhi subxaanahu wa tacaala ha soomo sunnada nebiga salawaatu ullahi wasalaamu caleyh markaynu eegno bukhaari iyo muslim waxay warinayaan min xadiisi ibni cumar radia allaahu canhuma qaala wuxuu yihi qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu yidhi bunya alislaamu calaa khamsin islaamka waxaa lagu bineeyey waxaa aasaas iyo saldhig looga dhigay 5 tiir shahaadati an laa ilaaha ila allah wa anna muxamadan rasuulu اllah wa iqaami الصalaati wa itaa'i الzakaah wa sowmi ramadaan wa xaji اlbeyti nebigu wuxuu leeyahay salawaatu ullahi wasalaamu calayhi towxiidka alle oo la qiro waxaa ku xiga salaada oo la ogo waxaa ku xiga sakada wixii ilaahay subxaanahu wa tacaala gacantaada uu geliyey allah uu kugu ammaanaystay oo uu kuu hibeeyey inaad wax ka bixisaa ku xiga bisha ramadaan inaad soonto xajkii inuu ruuxu uu u qasdo qofkii awoodi karaya uu ka soo xajiyo oo u qasdo xagga ijmaaca markaynu fiirino ibnulmundir iyo ibnu xasmin iyo imaamu nawowi iyo ibnu qudaama iyo keyrkood waxay soo naqliyeen inuu yahay soonku uu yahay shay waajib ah waxay soo naqliyeen yani sowmu ramadaan axadu arkaani اlislaami wa fardu min faraa'idih alatii culimat min addiini bidaruura wa ana munkirahu kaafiru murtadu can اlislaam soonku bisha ramadaan la soomo waa rugni ka mida arkaanta islaamka waa farad ka mida faraa'idda alle subxaanahu wa tacaala ee lagu ogaanayo macluumun min addiini bidaruura ruuxii inkiraana yacni wuu ku gaaloobayaa haddii ilaahay kuu roon yahay oo diinta islaamka ayuu ka baxayaa waajibnimada soonka ama bisha ramadaan ruuxii inkira siyaamkaasi wuxuu yeelanayaa arkaan buu yeelanayaa iyo tiirar aasaasiga tiirarka aasaasiga ee bisha ramadaan ay leedahayna waxa ama soonku uu leeyahayna waxaa ugu muhiimsan 2 tiir tiirka koowaadi waxa weeye anniya tiirka labaadna waxa weeye al-imsaaku can jamiici almufdiraat in laga joogsado dhammaan waxyaabaha wax afuraya tiirka koowaadna waxa weeye in soonkii la niyeeyo niyada maxalkeeda iyo booskeedu waa qalbiga carabkuna yani waxa haddii ilaahay kuu roon yahay shaqaa oo uu ku leeyahay ma jirto allah baa qur-aankiisa wuxuu ku yidhi subxaanahu wa tacaala wamaa umiruu ila liyacbudu allaha mukhlisiina lahu diin lama amrin khalaa'iqda inay ilaahay subxaanahu wa tacaala caabudaan mooye wax kale lama farin ayagoo weliba cibaadada alle subxaanahu wa tacaala u badhaxtiraya nabigeenuna salawaatu ullahi wasalaamu calayhi fii saxiixayn min xadiisi cumar bn اlkhadaab radia allaahu canhu waata uu leeyahay nebigu inama alacmaalu biاnniyaat wa inamaa likulli imri'in maa nawaa camaladu waxay ka guntamaan niyada ruux walibana waxa uu niyooday buu leeyahay natiijada camalkiisu waxay noqonaysaa hadba niyadiisu intay joogtay abu daauud iyo tirmidi iyo ibnu maaja iyo axmed iyo dabaraani iyo keyrkood waxay warinayaan nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi inuu tilmaamay oo uu yidhi man lam yubayit asiyaama qabla alfajri falaa siyaama lah qofkaan niyada aan ku baryin habeenkii soonkii aan niyoon intaan waagu beryin soon uma jiro buu nebigu yidhi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh xadiiska xafsa wuxuu leeyahay wa min xadiisi ibni cumar man lam yujamic asiyaama qabla alfajri falaa siyaama lah ruuxaan soonkii aan goosan aan go-aamin oo niyada aan ka goosan soon uma jiro subaxa ka hor hadduu niyadii niyoon waayo buu nebigu yidhi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh qodobka labaad ee ku tacalluqaya ama rugniga labaad ee arkaantii soomka ka mida waxa weeye waa alimsaak
إلهي وحليه سبحانه وتعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. إلهي وحليه وكلوا واشربوا عنا وعبا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل إلى liilankii caddaa oo idinka caddaa liilankii madoobaa liilankii caddaa iyo liilankii madoobaa ay idin kala caddaanayaan soonkiina dhammaystira ilaa habeenkii laga gaadho. liilanka madow iyo liilanka cad maxaa looga jeedaa? nebigaa fasiray salawaatu rabbi wasalaamuhu calayhi oo nebigu wuxuu yidhi innamaa hiya sawaadu leyli wa bayaadu nahaar. wax kale maahee labada liilan ee la kala sheegayo ee ka caddaanka iyo ka madowgee la rabo in la kala ogaado waa habeenka mugdigiisa iyo maalinka iftiinkiisii waaga dhalashadiisii in la kala ogaado. maxaa bishii inay soo gashay maxaa lagu ogaanayaa? waxaa lagu ogaanayaa laba shay. bishii in la arko oo qof caadilah uu arko ama laba qof oo muslimiin oo caadiliinah bishii ay arkaan iyo ka badan, ama bishii shacbaan soddonkeedii in la dhammaystiro ayaa bishii ramadaan soo gelitaankeeda iyo inay soo gashay iyo inay waajibtay lagu ogaanaya. fii saxiixayn min xadiisi abi hurayra radia allahu canhu wuxuu leeyahay ana rasuula allahi sala allahu calayh wasalam qaala nebigu wuxuu yihi suumuu liru'yatihi wa afdiruu liru'yatih fain qubiya calaykum faakmiluu ciddata shacbaana 30. wuxuu leeyahay nebigu aragti ku sooma, bisha aragtideedii ku sooma, sidoo kale bisha aragtideediina ku afura. haddii bishii laydinka daboolo, caad baa daboolay, daruur baa qarisay, mugdi baa galay, fain qubiya calaykum faakmiluu ciddata shacbaana 30. tiradii shacbaan soddonkeedii dhammaystira buu nebigu leeyahay salawaatu ullahi wasalaamu calayh. xagga aragtida bisha cidda arkaysa hal qof oo markhaati oo muslimihi waa ku filan yahay, sida xadiiska abu daa'uud fii sunanihi uu ku tilmaamayo min xadiisi ibni cumar radia allaahu canhu qaala wuxuu yihi taraa annaasu alhilaala, dadkii baa bishii fiirfiiriyey. fara'aytu يعني markaasaan arkay faأkhbartu النabiya salى الlahu عalيه wasalam أnii ra'aytu, kadibna nebi maxamed baan u sheegay inaan anigu bishii arkay. fasaamahu waamara الnaasa bisiyaamihi, nebigu waa soomay, dadkiina wuxuu faray inay soomaan ayuu faray nebigu salawaatu اllahi wasalaamu calayh. ibnu maaja iyo axmed waxay warinayaan nebigeennu salawaatu ullahi wasalaamu calayhi inuu yidhi fain shahida shaahidaani muslimaan fasuumuu waafdiruu. wuxuu nebigu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh hadday bishii ka markhaati kacaan ama ay ka marag furaan inay bishii arkeen laba qof oo muslimiin ah, laba markhaati oo muslimiin ah, fasuumuu waafdiruu, afura, yacni sooma oo afura buu nebigu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh. macnaha bisha awalkeedii aragtideedii haddii laba qof oo muslimiin ay yidhaahdaan bishii waa aragnay, way ku filan yihiin, muslimiintoo dhanna way ku soomayaan. hadday yidhaahdaan bishii markay dhammaatay bishii shawaal inay bilatay baanu aragnay, sidoo kale waa lagu soomayaa. fain shahida shaahidaani muslimaani fasuumuu waafdiruu wuu nebigu leeyahay salawaatu ullahi wasalaamu calayhi. ayib, shuruudda qofka soonku uu ku waajibayo, shuruudda laga rabaa maxay tahay? soonku wuxuu ku waajibayaa alislaamu waalcaqlu waalbuluuqu waalqudrati cala asiyaami waaliqaama waasalaamatu min almawaanic. 6daa shardi baa soonku uu ku waajibayaa qofka muslimka ah, ee 6 shardi ay ku dhammaystirantay ayaa soonkii uu ku waajibayaa. shardiga koowaad waxa weeye ruuxaasi inuu islaam yahay. waxaa ka baxaya gaalkii baa ka baxayo, gaalka soonkii kuma waajibayo ilaa towxiidkii uu qiro islaamnimada uu soo galo.
waata rabbigeen subxaanahu wa tacaala isagoo sidaa tilmaamaya uu leeyahay walaqad uuxiya ilayka waila aladiina min qablika lain ashragta layaxbadanna camaluka walatakuunanna min alkhaasiriin. alle wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala xaqiiqe waxaanu kuu waxyoonnay nebi maxamedow, adiga iyo ambiyadii kaa horeysayba waxaanu u waxyoonnay lain ashragta layaxbadanna camaluka walatakuunanna min alkhaasiriin. haddaad ilaahay xuquuqdiisa iyo cibaadadiisa cid kale ula qaybiso camalkaagu waa burayaa, kuwa khasaaray baadna ka mid noqonaysa. munaafiqiinta markii laga warramayay alle wuxuu leeyahy wamaa manacahum an tuqbala minhum nafaqaatuhum ilaa annahum kafaruu billaahi wa birasuulih. nagama mancinninoo nooma diidin xaggooda inaanu ka aqbalno wixii gacanta ay ka bixinayeen sadaqa ah, ilaa annahum kafaruu billaahi wa birasuulih, inay ilaah iyo rasuulkiisa ay ku gaaloobeen mooyaane. ayb, shardiga labaadee qofka soonku uu ku waajibayaa waa inuu caaqil yahay. waxaa ka baxaya majnuunkiibaa ka baxaya. waa inuu qaangaadh yahay. waxaa ka baxaya sabigiibaa ka baxaya. oo waata nebigeenu salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi markuu tilmaamayey, rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu calayh xadiiska abu daauud yacni tirmidi dabaraani xaakim iyo keyrkii ay warinayaan min xadiisi caliyin wa caaisha radia allaahu canhuma, wuxuu leeyahay nebigu sala allahu aleh wasalam rufica alqalamu can salaasatin, qalamkii dembiga loogu qorayo waxaa laga rafciyey 3 baa laga rafciyey. can ilmajnuuni xataa yacqil, ruuxii waalnaa ilaa inta uu ka miyirsanayo. wa can isabiyi xataa yaxtalim, ilmihii yaraa ilaa inta uu ka qaangaadhayo. wa can innaa'imi xataa yastayqid, ruuxii hurday ilaa inta uu ka soo toosayo. waxaa shardiga ka mida ruuxa soonka uu ku waajibayo alqudratu cala asiyaam, soonkii waa inuu awoodi karo. wuxuu leeyahay alle subxaanahu wa tacaala wain kuntum marda aw calaa safarin faciddatu min ayaamin ukhar. haddaad tihiin kuwo jiran, waxaynu ka qaadanay ruuxu inuu caafimaad qabo oo soonkii uu awoodi karo. wain kuntum mardaa aw calaa safarin faciddatu min ayaamin ukhar. haddaad tihiin kuwo jiran ama kuwo musaafiriina, afur oo maalmihii aada afurteen intaad tirisaan gadaal ka soo qalleeya buu nebigu leeyahay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh, buu alle leeyahay subxaanahu wa tacaala. shardiga lixaad ee laga fahmaya waxa weeye, shardiga shanaad ee laga fahmayo ama culimmadeennu iyo fuqahadeennu ay tilmaameen ruuxa soonku uu ku waajibayo inay lagama maarmaan tahay, waxa weeye aliqaama, ruux neg inuu yahay. wain kuntum mardaa aw calaa safarin, waa inaanu ruuxii safar aanu ku jirin. shardiga lixaadi waxa weeye alsalaamatu min almawaanic, mawaanicdii waa inuu ka fayow yahay. yuqsadu bihi alxayd waannifaas, gabadhii waa inay ka maran tahay dhiiggii dhalmada iyo dhiiggii xaydka waa inay ka maran tahay. haddii dhiiggii xaydka ama dhiiggii dhalmada uu ku dhaco, yacni soon dusheeda waajibkuma aha. daliil waxaa u ah xadiiska abu saciid alkhudri fi saxiixayn, nebigu wuxuu leeyahay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh isagoo dumarkii fariin gaadhsiinaya, alaysa ixdaakunna idaa xaadat lam tusalli walam tasun. yacni miyaanay ahayn idaa xaadat, markay xayddo, ixdaakunna midiin lam tusalli walam tasum, midaan yani markaa aan tukan, sidoo kalena walam tasum aan soomayn, soomaah. qulna balaa, waxay yidhahdeen nacam rasuulka ilaahay haa. xadiiska labaad fi saxiixayni min xadiisi caaisha radia allahu canha, mucaada binti cabdillaah alcadawiya, oo gabadhii caaisha wax ka baran jirtay faqiihadda ahayd ah, ayaa caaisha u timi oo markaasay waxay tihi maa baalu lxaa'idi taqdi sawma walaa taqdi salaa. caaishaay, waxaan ku weydiinayaa xaa'idada iyo gabadha dhiigu ku dhaco xaalkeedu muxuu yahay? soonka way soo qallaynaysaa laakiin salaada ma soo qallaynayso. qaalat caaisha marka waxay tihi axaruuriyatun anti, adigu ma xaruuriyad ma khawaarij baa tahay? markaasay waxay tihi caaisha, gabadhii baa marka waxay tihi lastu bixaruuriya, xaruuriye ma ihi, walaakinii as'al, laakiin waan ku weydiinayaa, cilmi doon baan ahay. caaisha waxay tihi kaana yusiibu dalika, arrinkaasaana asiibi jiray fii cahdi rasuuli illaahi sal allahu aleh wasalam, fanu'maru biqadaa'i sawmi
walaa nu'maru biqadaa'i الsalaaة waxaana la fari jiray soonka inaanu soo qallayno yacni salaada inaanu soo qallaynana nalama fari jirin walakum fii rasuuli اllaahi uswatun xasana nebi maxamedna ku dayasho wanaagsan baa idinku sugan haddaynu u gudubno maxaa soonkii burinaya waxyaabaha soonka burinaya laysku waafaqsan yahay yacni waxaa ugu horeeya alaklu waashurbu camdan si ula kaca ama qasad ah ama isagoo xusuusan ruuxu inuu wax cuno ama uu wax cabo bukhaari iyo muslim waxay warinayaan min xadiisi abi hurayrata radi allahu canhu qaala rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam nebigu wuxuu yihi salawaatu rabbi wasalaamuhu calayh man nasya wahuwa saa'imun falyutima sawmah fainamaa adcamahu allahu wasaqaah ruuxii hilmaama asagoo sooman oo faakala ow shariba wax cuna oo wax caba falyutima sawmahu soonkiisii ha dhammaystirto maxaa yeelay fainamaa adcamahu allahu wasaqaah ilaahay baa quudiyey oo waraabiyey buu nebigu ku yihi salawaatu ullahi wasalaamu calayh soonkii marka waxaa ugu horeeya soonkii jebinaya waxa weeye waa cunto ama cabitaan ruuxu uu wax cuno ama uu wax cabo isagoo isxusuusan marka uu wax cabo culimmadu waxay uga qiyaas qaateen cabitaankaas iyo cuntadaas wixii macna dacaam yacni macnihii cuntada yeelanaya oo markaa naftii ay ku kaaftoomi karto waxaa la yidhaahdaa alibra almaqdiya yacni jidhka irbadaha yani marka lagu nafaqeeyo sida gulukoska iyo faleebooyinka iyo daawooyinka jidhka lagu nafaqeeyo ee macnihii cuntada faa'iideynaya ama xidid ha laga qaato ama faleeba ahaan ha loo qaatee macnihii cuntanimo ayay yeelanayaan oo soonkii way jebinayaan shayga labaad ee soonka jebinaya waxa weeye aljimaacu camdan waa xiriir gogoleed ninku haweenaydiisa inuu la yeesho yacni isagoo u kasayo camdi ah waxaa laga yaabaa in la isweydiiyo oo la yidhaahdo oma nin xiriir gogoleed sameeyey ayaan isxusuusanayn hadduu xataa isagu hilmaamay miyaanay haweenaydu xusuusanayn fuqahadeennu shardigaasa u yeelan waxay yidhahdeen aljimaacu camdan waxaa daliil u ah xadiiska abu hurayra bukhaari iyo muslim iyo keyrkooda ay warinayaan yacni kunaa naxnu juluusan waxaanu ahayn kuwo fadhiya cinda rasuuli illahi sal alla alيh wasalam riwaayaadka qaarkoodna baynamaa naxnu juluusun cinda rasuuli illaah goor aanu rasuulka agtiisa aanu joognay golayaashii iyo majaalistii nebi maxamed ummadda samaha iyo khayrka uu ku farayey id jaa'ahu rajulu nin baa u yimi nebi maxamed salawaatu ullahi wasalaamu calayh faqaala yaa rasuula allah halagtu rasuulka ilaah waa halaagsamay nebigu wuxuu yihi wamaa ahlakaka maxaa ku halaagay qaala wuxuu yihi waqactu fii imraatii wa ana saa'im haweenaydaydii baan ku dhacay xiriir gogoleed baan la yeeshay anigoo sooman markaasaa nebigu wuxuu ku yidhi hal tajidu raqabatan tuctiquha ma helaysaa qoor aada xorayso nin faqiirah oo shiid ah oo beerkiisa aan beer ka xigin qoortiisa intuu taabtay buu yidhi qoortayda mooye qoor kale ma hayo nebigu wuxuu ku yidhi hal tastadiicu an tasuuma shahrayni mutataabicayn 2 bilood oo israacraacsan inaad soonto ma awoodaa riwaayadka qaarkood wuxuu yidhi hal asaabanii maa asaabanii ila siyaam oo waxaa igu dhacay soom baaba ii keenay bil baan adkaysan waayey ma 2 bilood baan adkaysan karaa cajiib nebigu wuxuu ku yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh hal tastadiicu yacni ma awoodaa an tudcima 60 miskiinan 60 miskiin inaad quudiso qaala laa ma awoodo buu yidhi fajalasa wuu fadhiista fautiya bimiktalin fiihi tamrun nebiga waxaa loo keenay dembiil ama sallad ay timiri ku jirtaa loo keenay markaasuu nebigu wuxuu yihi fatasadaq dembiishan qaadoo sadaqdayso markaasaa ninkii hadda ka walwalayey dembiga uu galay toobadkeenka u raadinayey ayaa yacni xoogaha adduunye jacaylaa galayo wuxuu yidhi aclaa afqara minii fawallaahi maa bayna laabatayha calaa ahli beytin afqara min ahli beyti oo ma cid iga saboolsan baa jirta ilaahay baan ku dhaartay madiina labadeeda gollood labadeeda shiila madow uma soo hoydo
guri reerkayga ka faqiirsan oo ka saboolsan markaasaa nebigu ku yidhi reerkaaga quudii riwaayada abu daa'uud fii sunanihi waxay siyaadinaysaa xukun dheeraad ahoo xukunkaa dheeraadka wuxuu leeyahay sum yowman makaanahu yacni maalinkii aad jebisay soonkiisa soo soonoo gadaal ka soo qallee wastakfir illaaha ilaahayna dembi dhaaf weydiiso shayga saddexaad intaynaan ka bixin marka jimaaca iyo galmada ramadaan la sameeyey culimmada qaarkeed waxay uga qiyaas qaataan isagana soonkii inuu jebinayo alistimnaa qofku inuu gacantiisa biyaha iskaga keeno maalin ramadaan uu iskaga keeno ama haweenaydii far isticmaasho waa madhabu a'immatu alarbaca afarta imaam madhabkooda waayo afarta imaam haddii ilaahay kuu roon yahay sida ay ku tageen weeye waana sida ibnu cusaymiin raximah اllahu tacaala sharxu lmumtic calى saadi lmustaqnici kitaabka yani marka uu leeyahay mujaladka lixaad 381 uu ku tilmaamayo wuxuuna u deliishaday xadiis alqudsiga alle uu leeyahay subxaanaه wa tacaala taraka طacaamahu wa sharaabahu wa shahwatah cuntadiisii iyo cabitaankiisiibuu wuxuu uga tegey aniga dartaybuu uga tegey marka hadduu maalin ramadaan uu biyihii uu iska keeno sabab uu u noqdo soonkii haddii ilaahay kuu roonyay waa ka jabayaa laakiin kafaaro laguma leh qodobka afraad ee laysku raacsan yahay waxa weeye alistiqaa'u camdan si ula kasa ama ula kaca ama kas iyo maaga inuu isaga mantajiyo xadiiska tirmidi abu daawuud axmed iyo ibnu maaja ay warinayaan min xadiisi abi hurayra radia allaahu canhu ana nabiya sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu leeyahay man daracahu alghayu mantagu ruuxuu ka qaalib noqdo falaysa calayhi qadaa soonkii inuu soo qalleeyo laguma leh waman istaqaa'a falyaqdi yacnii ruuxii iska mantajiyana soonkii ha soo qalleeyo ibnulmundir baa ijmaac soo naqliyey asaguna soo naqliyey waxaa ka mid ah qodobka shanaad ee laysku waafaqsan yahay alxaydu waannifaas haweeneyda bishii ramadaan haddii dhiiggii xaydka ahaa ama dowra shahriya ay ku timaado dhiiggii xaydka ahaa uu ka yimaado soonkeedii waa buray waxaa daliilu ah labadii xadiis aynu soo marnayo xadiiskii abu saciid alkhudri fi saxiixayn waata nebigeenu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh uu lahaa alaysat ixdaakunna idaa xaadat midiin miyaanay ahayn markay xaydo lam tusallii walam tasum midaan salaadii tukanayn sidoo kalena aan soomayn faqulna bala iyo xadiiskii kale caaisha ay lahayd yacni kaana yusiibunaa daalika arrinkaasaa na asiibi jiro xaydkaa nagu dhici jiray yacni fa nu'maru waxaana la fari jiray biqadaa'i asawmi walaa nu'maru biqadaa'i asalaa soonka inaan soo qallayno ayaana la fari jiray laakiin salaaddii inaan soo qallayno nalama fari jirin waxaa soonkii aan shantaa ama lixdaa qodobbaa waxay yihiin waxyaabaha laysku waafaqsan yahay ee soonkii burinay waxaan soonkii burinayn maalinkii ramadaanta yani iyadoo maalinka bartankeedii hadduu ruuxii intuu riyoodo yacni markaa xiriir gogoleed isagoo samaynayo uu ku riyoodo maradiisana uu biyo uu ku arko yani soonkii ma burinayo ama feker biyo ay kaga yimaadaan soonkiisaasi ma buraayo waa madhabka imaamu shaafici abu xaniifa waana ikhtiyaaraadka shaykhulislaam ibnu taymiya yani uu dooranayo mar haddaanu isagu sabab ku lahayn sidoo kale waxaan iyadana soonkii burinayn hadduu mubaasharo iyo taataabasho uu haweenaydiisii uu ku sameeyo maalinkii ramadaan uu ku sameeyo mubaasharo iyo taataabasho uu ku sameeyo haweenaydiisii oo madyi uu ka yimaado yacni ama wadyi uu ka yimaado madyi ay ka timaado ixdaleelo ama jaleelo sida dadka qaarkood ay u yaqaaniin ay ka timaado markaasna waxa weeye soonkiisii ma burayo sida markaa shaykhulislaam ibnu taymiya ikhtiyaaraadkiisa marka uu ku tilmaamay waxaa kale oo soonkii aan burinayn qubayska maalinkii la qubaysto waxaan kaloo soonkii burinayn haddii ilaahay ku run yahay ruuxu inuu daawooyinkii uu jidhka uu ka qaato sida irbadihii kaneecada oo kale ama haddii ilaahay kuu roon yahay wixii aan ahayn waxyaabaha jidhka xoojinaya
oo cuntada markaynu ka hadlayna aynu hore uga soo hadal waxaa sidoo kale la mida soonkiisii aan burinayn haddii waagu u baryo isagoo jinaabo qaba ayadana soonkiisii burin mayso waxaan soonkii burinayn oo kale haddii dhiig laga qaado oo masaa'ilkan casriga taxliilaad dhiiggii kaneecada farihiisa laga qaaday ama midkan xididka laga qaadayo halbowlaha xididka laga qaadayo ama dhiig buu qof u shubay waxyaabahaasi iyagana soonkiisii ma burinayaan waxaan kaloo soonkiisii burinayn khuruuju dami dhiig baa ka soo baxay dhiiggaasi ama jidhkiisa ha ka yimaado ama sankiisa ha ka yimaado sangoror ha ku dhace isaguna soonkiisii burin maayo yani sida raajixa waxaan soonkiisii burinayn daawooyinka yani marka uu ka qaadanayo jidhka uu ka qaadanayo waxaan ka ahayn daawooyinka cuntada lagaga kaaftoomi karo dayib waxaan sidoo kale soonkiisii burinayn haweenaydii in wiisito lagu sameeyo haddii ilaahay kuu roon yahay oo dhakhtarkii uu wiisiteeyo ama haddii ilaahay kuu roon yahay sawir inta laga qaado makaankeedii iyo xubinkeedii yani lagu ogaanayo yani faxsi lagu samaynayo ayaduna majmac yani fiqhi sida ay fatwoodeen marka soonkii waxba uma dhimayo waxaan sidoo kale soonkii wax u dhimayn bay yidhaahdeen majaamicda fiqhigu siday fatwoodeen hadduu yani gows iska saaro ama haddii ilaahay kuu roon yahay ilkihii uu qodo u nadiifiyo waase goorma haddaan dheecaanka iyo haddii ilaahay kuu roon yahay candhuuftaas waxaas uu iska ilaaliyo dalqadiisa aanay ku baxsanayn waxaa soonkii aan waxyeelayn masaa-ishan casriga ah qofka xiiqda qaba ama asmada qaba haddii uu isticmaalo oksijiintan ama waxaan gaaska ah ee laysku buufinayo bakhaaqda uu isticmaalo ayadana soonkiisii ma burinayso waxba ma yeelayso dadku marka dhiig kaneecaan iska soo qaaday bahalkaasaan isku buufiyey waxyaabahaasay inta badanna weydiiyaan shaygaas marka oksijiinta ah ee qofka asmada qabaa uu sankiisa uu ku buufiyana soonkiisii waxba ma yeelayo waxaan kaloo soonkiisii waxba yeelayn oo waxba u dhimayn inuu cadaydo ama uu rumaydo ama gelin hore ha ahaato ama gelin dambe ha ahaatee inuu rumaydo iyadana markaa soonkiisii waxba yeeli mayso waxyaabahaasi waa khulaaso kooban oo axkaamu siyaam aan ku soo koobnay innagoo haddii ilaahay ku roonyahay soo koobayna yacnii soonka xukunkiisa macnihiisa luqawiga iyo macnihiisa sharciga ah yuu soonku uu ku waajibayaa shuruudda qofkas yani soonku uu ku waajibayo looga baahanya maxay tahay maxaa soonkii buriya maxaanse soonkii burinayn lixdaa qodob baan ku soo koobnay mowduuceennii axkaamu siyaamka ku saabsanaa allahuma ati nufuusana taqwaha wazakiha anta khayru man zakaaha anta waliyuha wamowlaaha allahuma ina nas'aluka iimaana kaamila wayaqiina saadiqa waqalba khaashica walisaana daakira warisqa طayiba wacamala mutaqabala وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته